Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaantiin meel walba dunida daafeeda ka joogtiin. Oo walaashiina Maryan. Soo dhawaada asxaabe. Maanta waxaa idiin wada qis yar oo cibra qaadasho mudan. Gabadhan waxay leedahay waxaan reer lahaa 12 sano. Uur iyo waxbana ma yeelan. Kadib reerkii wiilka waxay leeyihiin maalin walba gurigan shaqaale ay ka tahay xaaska ma tihid. Xitaa wiilkii xaajigeyga waxay leedahay xaajigeyga wiilkii asaga ka yaraa walaalkiis uu guursaday wiila loo dhalay reerkii farxad maalintaas wiilka loo dhalay. Anigii marka waxay leeyihiin maalin walba waxaa tahay jaariyad waxbana uma tihid. Gabadhan waxay tidhi gabar aad isku kalsoon markaas waxay tiri aniga iska duceysan jiray Ilaahay iska tala saaran jiray inuusan Ilaahay waxan igu dhibin. Waxay tiri mar walba waan iska duceysan jiray bini'aadan horta hadalka uu leeyahay. Waxay tiri dhagtan inta aan geliyo waan dhageysan dhagta ka aan ka bixin laakiin nafsi ahaantii isku kalsoonaa waxaan ahaa qof iska duceysanayo qof shantiisa waqti salaad tukanayo. Cabaar kadib caloosha ay xanuuntay tiri mandhiciradi ayaa ay xanuuneen. Markaas waan tagay waxaan aaday isbitaal waxaa lagu yiri waxaa leedahay uur. Kadib xaajigeyga telefoon u wacay oo u sheegay uu soo orday wuxuu yiri madhicaysa rumiya iyo ku celi markale lagu celi farxad oogis markii labaad markay soo baxday inay positive tahay farxad oogis u dhawey tiri oogid. Gabadhii wuxuu yiri dhakhtarkii hata hal ma ahane waa 3 wiil. Markaas axbaabi ducada lagu sheegay qof hadii uu duceysto mar walba naf ahaantiisna isku kalsoonaada inuu Ilaahay ducadan uu ka aqbalayo uu ku kalsoon yahay Rabbigiis mar walba waxba kama halaawayan. Laakiin intuu qofka dhageysanayo hadal bini'aadan ah waxna uma hagaagayaan. Gabadhii waxay tiri sodohdeydii ayaan u sheegay farxad oogis way farxaday. Dadkaas waxay ahaayeen dad Carab ah. Marka waxay tiri gabadhan ducada waa shay qaali ah. Marar la ajiibay jirta ducooyinka waqti sida habeenka thuluthul habeenka wax xilliga damba inta salaada subax aan la aqmin ka hor salaadaha waajibka markii la aadami aqanka dhaxdoodii waqtiyadaas. Marka gabadhan waxay leedahay ducooyinka waa shay aad u qaali ah. Rabbigaada aad ku kalsoonaatid.